بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسنا دلكيبا دعوة ضيال من الواجبتان وعاد كسر واتن برامج كبدي جرجة هذا وكلايات كذا وتان شاشة عالمي جرجة تي في ساكا وسبت تاريخ وحا عيد السبعين سكوي تمن كبشة السبتمبر لبا كنا كوي لواتن قضاء حسب بدنا يعني ذكواينا برامج كواد كذا من تونتان قضاء بدنا وحاكم من نقطة يا xaflad si heersanah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad boqolaal dadyo isugu jira waalid macallimiin iyo waliba bahwadaagta waxbarasho oo ayna ku qalin jabinayeen arday da'yar oo ay tiradoodu kor u sii dhaafayso boqolaal ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga Rajo Saaka oo sabti ah waxaa qayb ka ah caasimada dalka waxaa dib ugu soo laabanaya goobo waxbarasho kuwaasi oo ka duwan goobihii hore maadaama dib u dhis balaaran caasimada ay ka socoto dhanka waxbarashada marka loo eega waxaa ku soo kordhaya macaahidda lagu barto xirfadaha iyo tababarada toddobaadkan booqasho aan ku tagnay mid ka mid ah macaahiddaasi oo aan warbixin idin kaga soo diyaarinaya saaka qayb ka ah barnaamijka bandhiga Rajo qodobada aad ku daawan doontaan sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga Rajo waxaa qayb ka noqonaya maxaad kala socota hab daaweynta cilaajka weerarka markaasi loo yaqaano sharin waa sheeko kala xiiso badan oo aan qalinka u qaatay oo aan barnaamijka iyaga saaka idin kugu soo gudbin doono qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin dal la sheegay dadka dhinta inay dib ay ugu soo noolaanayaan haddii la sameeyo arrimaha soo socda haddaba maxay yihiin daawade barnaamijka ayaa saaka sheekooyinka xiisaha badan oo aad ku daawan doontaan kamid ah qodobada iyo kuwa kale oo aan idinka qarinayo ayaad ku daawan doontaan anigoo Ashraf Cabdulbaasid Macallim Xasan ayaa soo saaray halkan idin kala soo codsinaya saaxiibkay Cabdisalaan Xaaji Aadan ayaa farsamada kaamirada gacan iga siinay waana mar kale ya barnaamijka bandhiga Rajo markale is aragti cidoon daawadayaal qodobadii ugu doorka roonaha barnaamijka iyaga saaka ayaa daawateen markana ayagoo inta ka sii faahfaahsan ku soo dhawaada sheekada ugu horeysa ayaan soo qabanayaa xafladda si heersanaha loo soo agaasimay kuna qalin jabinayeen ku dhawaad boqolaal arday aad u daayar ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala gedisan bahwadaagta waxbarasho iyo waliba waalidiin iyo macallimiin ayaa lagu qabtay caasimadda Muqdisho dugsiga Axlaam oo kamid ah dugsiyada maxalliga ah ee ku yaala caasimadda dalka ayaa soo qabanqaabisay xaflad qalin jabina ka oo ay ku qalin jabinayeen boqolaal arday ay daadoodu aad u yartahay ayaa lagu qabtay hoolka xafladaha ee jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho xafladani waxaa ka soo qayb galay waalidiin caruurta dhalay iyo waliba qaar ka mid ah bahwadaagta waxbarasho kama se marnayna macallimiinta iyo doorka maamulka oo xafladda qayb ay ka ahayd khudbado dhowr ah ay soo jeediyeen mas'uuliyiin kala gedisan ee ka kala socda qaybaha waxbarashada iyo waalidiinta oo dhankoodana dhiirigelin hawada u marsiiyay ardayda da'da yar ee ka qalin jabinaysa dugsiga Axlaam ayaa lagu soo bandhigay halka dugsiga Axlaam ayaa waxa ardayda u qalin jabinaysa ay qayb ka ahaayeen arday ka soo baxday qaybta xanaanada loona gudbinayo qaybaha kale ee asaasiga waxbarasho salaamidana ardayda waxbarashada ku dhameysay xagga Quraanka Kariimka ayaa qayb ka ahaa oo iyaguna xafladaasi lagu soo bandhigay iyagoo waliba bandhig ay halka ka sameeyeen aadna u soo jiitay waalidiintii dadyoogii ka soo qayb galay xafladana lagu qabtay hoolka xafladaha ee jaamacadda UNISO waa kan qaar ka mid ah waalidiinta iyo macallimiinta
oo ka hadlaya dareenkooda. waxaan hambalyo gaar ah siinayaa ardayda ka qalin jabisay xifdinta quraanka kariimka waxaan leeyahay ilaahay aadin sharfo macallimiintii quraankaas bartay khayrukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamahu wa ma santiin wa jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maan maamulaheena macallimiinteena inta waqtiga qaaliga ku dhumisay ardaydeena waxaan leeyahay macallin Cabdinaasir macallimiinteena waa waalidiinteena labaad oo waalidkii booskiisa noo istaagay waxaanu leenahay boqol waa mahadsantihiin xafidullah ayaa idin leenahay waxaan keensaday wiil autism ah asagoon hadlaynin oo af Soomaali iyo hadal muhiim ah aan garanaynin alxamdulillah markii aan keenay xanaanada Ahlaam oo aan ku soo simay ustaad Cabdinaasir iyo macallimiintiisa waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeeynayaa inuu cunugii hadda isbedel ii sameeyay oo hadlo uu ku faraxsan yahay waqti walba inuu dhex joogo macallimiinta iyo ardayda dugsiga Ahlaam taasna waxa mahadda iskale Ilaahay mahadda labaadna waxa iskale ustaad Cabdinaasir iyo macallimiintiisa iyo iskuulka Ahlaam guud ahaan Ahlaamna waxa leh wax fiican oo qurux badan oo qaaya badan ayaa ku soo kordhiseen maxaa yeelay nidaamka maanta wax lagu baranayo annaga shalay dacas wadano oo ciid fariisanayno oo cunugu markuu istaaga aad u maleynaysid inuu isku kaadsho ama isqooyo dhididkii korkiisa ka imaanay waxa laga yaabaa inuu istaagi xataa uu ka xishoonay halka maanta cunuga dharkiisu nadiif oo uniform wato uu quraanka ku baranayo taasna waxa la kalaamka Ilaahay sidaad u darajeyseen oo adreeska ugu sameeysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala adrees jannaha ugu sameeyay maalinta qiyaamaha maxaa yeelay wax walba oo la qiimeeyo waxa ugu wanaagsan kalaamka Ilaahay in la qiimeeyo kulay maanta ma ahan maalin aan soo koobi karo farxadeyda maxaa yeelay markaan macallin tahay aragtid arday soo saartay misana maanta quruxda iyo wanaaga ka muuqda ay yihiin waxyaabihii asluubta iyo nidaamkii aad soo bartay ay yihiin maahan farxadaada iyo yaani wax aad soo koobi kartid maaha sidaa darteed waxaan leeyahay maanta ardayda sharafta badan qiimaha badan alf mabruuk farxadiina waa idin la qaybsanaya farxadiina waa farxadeena alf mabruuk ayaan leeyahay ilmuhu markii ay barbaarinta xilliga barbaarinta ay ku jiraanna waa xilliyada ugu adag runtii oo ay muhiim tahay in wax badan oo noloshooda kamida la layliyo oo la tababaro oo cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq lagu shubo maskaxdooda oo ugu horeysa cilmigaas la barayo macrifada iyo aqoonta ay u leeyihiin rabbigood runtii shaqo sahlan ma aha waana ka mahadinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta xanaanada Ahlaam ilmaha hadda xafladda loo sameynayna waxa la sheegay inay isugu jiraan ilmo bartay quraanka kariimka xifdiyay iyo ilmo hingaada ama farbarka afka carabiga la soo dhiso la soo baray waan awoodi karno wasiil lahayn laakiin kaliya maanta waxaan awoodnaa inaan tusno ama aan dareensiino dadaalka uu ku bixinayo ubadkiisa ama canugiisa inaan la soconno waan ognahay inaan dareensiino kaliya ayaan rabnaa marka waxaan rabaa inaan waalidkaas kaliya aan guddoonsiiyo inta kale sharaftiin insha Allah taala waan siinaynaa xafladda dadweynaha ka soo qayb galay oo ayna qayb ka yihiin baawadaagta waxbarasho oo si wadajir ah ugu marxabeeyay ardaydana da'da yar ee ka qalin jabisay qaybaha kala duwan waxbarashada ee dugsiga Ahlaam waad halkaas aan kaga talaabno sheekadaasi barnaamijka Bandhiga Rajo aad wali daawanaysaan dhanka kale sheekada xigta hadii aan soo qabtana caasimadda dalka Soomaaliya waxa ku soo badanaya macaahida kala gedisan dhanka waxbarashada balse toddobaadkan waxaanu ka eegnay dugsiyada sida gaarka loo leeyahay macaahida kuwaas oo isugu jira bixiyana waxbarashada tababaro iyo waliba maadooyinka markaasi kala gedisan ee la barto sida luqadaha iyo maadooyinka loo yaqaan scientific subjects-ka waxaanu ku galnay waxbarashada iyo waliba habka ay wax u bartaan dumarka oo aan si gaar ah uga eegnay xirfadda lagu tababarayo dumarka dugsiga STTI ayaa kamid ah dugsiyadaasi oo toddobaadkan booqasho ku tagnay warbixin aan ka diyaarinay ka bogasho wacan waxa barihii dambe soo badanayay ardayda waxbarashada qeybaha kala duwan ka sameynaya horumar si gaar ah dalku seeha ay ku yartahay goobaha waxbarashada xirfadaha iyo waliba culuumta kale macaahida u gaarka u leeyahay xirfadaha kala duwan sida barashada qurxinta dumarka oo qaybo kala duwan ay ka kooban tahay barashada farsamada harqaanka ama toolinka dharka ayaa ah mid aanu macaahida kale ay ka wada sineen balse macaahida gaar ah
lagu barto. si kasta macadka barashada xirfadaha iyo tababarada Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo STTI ayaana ugu kurgalnay sida wax looga barto maadaama uu macadka bixiyo qaybaha kala duwan waxbarashada sida saxaafadda, caafimaadka, maadooyinka cilmiga ee scientific la isugu yiraahdo luqadaha, balse ay u dheer tahay barashada xirfadaha dumarka sida qurxinta dumarka iyo waliba farsamada harqaanka. waraysiyo aan la yeelanay maamulka macadka STTI ee qaar ka mid ah ardayda sida midabarayaasha ayaan ugu kuurgalnay kuna ogaanay qaabka waxbarashada halkaasi ardayda waxay uga bartaan. waxaana dhanka kale waraysi la yeelanay macluumaadda sida gaarka u bixisa barashada qurxinta dumarka oo ka sheekaysay marxaladaha kala duwan ee ay leedahay barashada mihnadan. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجاعد وشمس محمد يوسف. أنا كميدا أرضية دجتا يسولك STTI كان برتا عافيماتك. عندي برشة عافيمات واحد بالله حل بالكهر. سوشيال ما أنا نقولن وحيالها سوا بكتيريا لكن ما أنت وحى وجاده وحيالها سوا بكتيريا يجروين كقار فافا وحيالها أنا نفافين. إن مادة قرحين تورتوا برنتهاي وحيسوق جيران إن وحياو بدن سيد وحكمت إعلان ساركا إن ميك أبكا إن تندبستا إن فونيها iyo waxa kale oo kamid ah iyo dhamaan waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan sida qamaarada loo xirto oo kaleeto intaasba waa baranaa dumarka qaarkood waxaa jiro oo marka imaadaan make up inaysan aqoonin oo kaleeto make up marka waxaa la sameeyaa koodii hore ardayda sunniyaha la baraa sunniyaha markii la baro kadib sunniyaha ay la qabsadaan kadib eyeshadow u baranaa eyeshadow markay bartaan kadib make up full ay saaraan sidaas wax u baranaa ardayda cilaanka bartane waxaa kamid ah waxyaabaha la baro ardayga markuu imaanayo oo kaleeto bacda markii uu qabanayo kala woo jareena inuu jareeyo kaleeto ardayga asina waa badnaa si oo gacantiisa ay u adkaato oo bacdan uu la qabsado shanta maadada cilaanka maalinta qaadanayno afar maalin waxa qaadanaa cilaan toos ah sabuurada wax loo qoraa way kasii qornayaan kadib practice kareynayaan maalinta arbacadana cilaan toos sameeyaan cilaan toos ay mariyaan ardayda si ay ula qabsadaan cilaanka. ugu dambeynna Ustaad Cabdulfataax Aadam Abuukar ahna maamulka macadka ayaanu waxa ka weydiinay sababaha ku dheeriyay inay hirgeliyaan macadka noociisu ku yartay caasimadda dalka maadaama uu yahay macadka mid la siman macaahida kale balse xagga waxbarashada laakiin ay dheer tahay barashada xirfadaha kala duwan waxtarna u leh bulshada. magacaygu waa Cabdulfataax Aadam Abuukar waxaan ahay maamulka iskuulka STTI. runtii iskuulkan STTI wuxuu soo maray marxalado kala duwan. fikradda in la aaso STTI waxay bilaabatay horaantii bishii September 2018. markay bilaabatay fikraddaas waxaa la sameeyey in iskuul la raadiyo. iskuulka marka wuxuu soo maray caqabado kala duwan. marka iskuul la furaa marka waxaa u baahan tahay goobtii wax lagu baranayay, agabkii wax lagu baranayay, ayadoo aan taas aan faro ku haynin aniga iyo Ustaad Axmed Cali, Ustaad Maad Axmed Cali aan xitaa waxaa dhacday marxaladii ugu soo maray kamid ah in aan wareegeynay waxaan u wareegeynay maysan ahayn inaan hanti ama faa'iido aan raadin waxaan u wareegeynay in goob oo wax lagu baro ardayda. bilowgii aan soo bilaawnay iyo maanta halka taaganahay farqi weyn u dhaxeeyo. iskuulka waxa ka baxday marka dufcadooyin kala duwan. dufcadii ugu dambeysay waxay dufcadii lixaad oo ka qalin jabisay cilmiga caafimaadka. dufcadooyin fara badan ka qalin jabiyay sida waxa ka qalin jabiyay cilaansaar, make up. haddii aan usoo laabto qurxinta dumarka iyo cilaansaarka waxaa jiro gabdho fara badan oo ka faa'iidaystay xirfadii oo wax badan bartay kusii shaqaysto iskuulkii muddo kooban ayagoo ku bartay xirfadii. maadadii ama wixii uu baranayo wuxuu u baahan yahay horta in lagu dhiirigeliyo. tusaale wuxuu leeyahay waxaan ma sabri karo, waxaan ma samayn kari. marka maclimadda ayadaa dhiirigeliso, ayadaa ku samayso. yacni kaliya maclimadda ma ahan inay maadada barayso, waa dhiirigeliso. waxay leedahay waxaan waa samayn kartaa, dad badanaa soo sameeyey oo kormari kartaa. dad badan oo waxaa jira marka ka cabsanaya markay soo galayeen iyo maanta farqiga u dhaxeeyo inay xitaa samaystaan xilliyada iidaha oo kale gabdhuhu way ka faa'iidaystaan. guryaha oo kale inay boor isaga dhigsadaan oo kale oo ay ka faa'iidaystaan oo ay kusii shaqaystaan waay iyagu ay wax ku qabsadaan. qaybihii dhexe barnaamijka ayaan daawadayaal isla soo gaarnay. waxaan soo qaban doonaa sheekada xigta waxayna noqonaysaa maxaad kala socotaa hab daaweynta cilaajka warwarka ee markaasi shirin. waa sheeko gaar oo aan qalinka u qaatay toddobaadkan aan jeclahay barnaamijka inaad markaasi ku daawataan saakana qodobada aad ku daawanaysaan aad kaga soo xulnay ka bogasho. xanuunada ruuxa ku dhacay qofka sida warwarka iyo walbahaarka iyo jaceylka cimriga dheer waxa inta badan lagula tacaala
daba dhaqameed iyo farsamooyin kala duwan oo la aaminay bulsho kasta waxa ay leedahay hadabo hab iyo dhaqan iyo markaa u gaar ah inay isticmaasho. haddaba dalka Japan haddii aad jeclaato cimrigu inuu ku dheeraado waxa dadku kugu talinayaan in aad ka maydhato dooxada dhirta badan taa oo ah arrin ay caado ahaan ay aaminsan yihiin waxaana loo yaqaanaa keenta maydhashada. arrinta ayaa mid dhaqan iyo cilaaj dabiici ah sida ay daban ay kaga soo xigatay center sources luqadda Japan waxa looga yaqaanaa Keitan Shirin Yoko taa oo ay rumaysan yihiin inay kor u qaado caafimaadka qofka ku maydha sababtuna ay tahay hawada ay halkaasi leedahay. Shirin Yoko sanadkii 1980 waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelka caafimaadka ee dhaqanka Japan sida lagu daawacay website-ka Shirin Yoko Drug. cilmi baarayaasha ayaa ku dooday in waqtiga iyo meedhashada lagu qaato keenta ay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo ay ka mid tahay kor u qaadida habka difaaca jidhka, hoos u dhaca cadaadiska dhiigga iyo walaaca. waxa kale oo ay leedahay inay aada niyad wanaag yeelata hurdada, kordhinta heerka tamarta iyo soo bookasashada degdega ah ee meelaha dhaawacyada iyo nabarada ku yaalaan iyo xanuuno kale oo aad u badana. sanadkii 2009 daraasad kooban oo ay soo saartay Japan ayaa lagu sheegay in lagu ogaaday in nafsashada cayayaanka dhirta ku badan iyo hawada keenta jiqda ah ay hoos u dhigto hormoonada warwarka dhaliya ee ragga iyo dumarkaba iyada oo waliba kor u qaada difaaca unugyada dhiigga. habka isku daweynta keentani uma baana jimicsi iyo socod orod qofka uu dhibsado kaliya waa in uu booqdo ku nastaana kadibna ku maydha. waxaana aad ka uga nasanaysaa codka shimbiraha, udgoonka ubaxyada kala duwan, biyaha qulqulaya iyo ciidda quruxda badan. goobtani ma laha dhammaan tiknoolajiyadda casriga iyo mashiinada hawada wasaqeeya taasi oo ka dhigtay goob lagu nasan karayo oo la isku daweyn karayo. waa xigeenka daawadayaal sheekadaas waxay sheekada ugu dambeysay saaka barnaamijka Bandhiga Rajo qodobada xiisaha badan aad ku daawateen waxaan jeclaynaa halkan ku soo gabagabeeyo guud ahaanba barnaamijka waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo Ashraf Cabdulbaasid Macallim Xasan Cabdisalaan Xaaji ayaana dhanka kaamirada iyo farsamada gacaniga siinay inta barnaamij ceenkana kulmi doona nabadgelyo.